السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول بس سؤال توصل أنا أقول يا سؤال شكواد وزير وزارة محي وكيل قطعي أما أنا وكيل أني حلية مناسبة عيدك أما حلية صون كاين وزارة إعلام السوق أنت بدأ واحد على خلافات كي ماذا مدينتها أما وقتك دي صون سوق ليو أما يوم العيد يتعي وكله مركا خلافات كمر والبدعة أما إن dadku bulshadu kala soonto ama kala iido oo kale wasaaraduna waa shaqadeedii marka maxaa idinka qorshaysan maxaase arrinta ka qabateen dhowr weydiimood baan qabaa weydiinta koowaad waxa weeye midana wasiir waxaynu ognahay halbeega dowladnimada ama micnaha dowladnimada waa habba kalsoonida shacabkiisu ku qabaanin waxa wax weyn ah runtii in kalsoonida shacabku marka ay timaado garsoorka ay hoos u dhacayso ama wiiqmayso adiga oo wasiirkii cadaaladda ahna shirkii cadaaladda bilii la soo dhaafay garow lagu qabtay waa aad ka sheegtay inay godololo weyn ka jidho garsoorka Puntland arrinta maadaama wasiirkii wasaaradda aad tahay wax qorshaayo aad wax kaga qabanaysaan oo garsoorka lagu saxayo kalsoonida shacabkana lagu soo celinayo wax talaabaayo qaadeen ma jiraa wax hadda idinka qorshaysanayn ma jiraan wax qorshaayo golayaasha kale ee dawladda sida golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka ay u soo gudbisay oo aan laga jawaabin si arrinta culayska ay leedahay wax looga qabto ma ay jiraan taa waa su'aal midda labaad waxa aad inoo ku soo badanaya aanada qabiilka iyo isku dhacyada beelaha iyo dilka oo waxa ugu daran oo diinta islaamka ay la dagaalantay ah waxa jira 2023kii dhaqanka gobolka mudug go'aan ay gaareen oo ahaa sharciyada islaamka in la dabaqo marka ay timaado dilka arrintaas oo u baahnayd awood dawladeed iyo fulin dawladeed iyo siyaasad dawladeed si waafaqsan qodobka 108 dastuurka dawladda Puntland arrinta wasaaradahan maxaad ka qabateen maxaa tilaabayo dawladdu ilaa arrinta ay ka qabatay maadaama hadda arrinta aanooyinku ay hoggaanka la baxday oo ay noqotay issue aad iyo aad u weyn oo u baahan attention dawladeed iyo siyaasad dawladeed waa maasan laba qodob oo yar baan rabaa inaan mudanayaal waxa la yiri wiil jiilaal dhashay horta waxa la yiri reerkiisa wax la qabaayo Puntland duruufo badan bay la nooshahay ama dagaalada ay ku jirta ha ahaato magaciisi waxa ka badan waxaan u maleynayaa oo inayna idinka leedin weydiinayn waxa jiray kufsigii gabdhaha horta aad iyo aad buu u jiraa waliba waxa weeye degmooyinka iyo gobollada fogfog haddeed ayada waxa weeye waa reer bahowyaa kule laakiin waxa weeye degmada tan gobolka iyo magaalo madaxdii baa waxaad moodaa tacadiyaashii inay aad iyo aad uga jiraan hadda waxaynu ogeyn laba gabdhood yar oo walaal ah oo xaalba xaal ahaa oo geeri iyo nolol anu hadda waxay meel ku dambeeyeen ma aqaan ninkii dhibaatada geystay kolle waa la qabtay baa la yiri mudana wasiir arrintaas xagee ku dambeysay gabdhahaas ma dhinteen ma nool yihiin cadaalad ma heleen kolle shakhsiga waa la soo qabtaa la yiri arrinta mudanaha xildhibaanka ugu horeyso inuu weydiiyo ku saabsan ciidaha sidaad la socotaan mudanayaal ciiduhu waxay ka tirsan yihiin shacairta islaamka shacairta islaamka haddii ka tirsan waa arrimo maamul ayagu cibaado ah way dhinaca kalena waxay ka yihiin arrin maamul annagu waxaanu ka shaqaynay waana xaqiijinay weliba inta hadda wasaaraddan aan joogay in culummada waddanka ka joogta oo culummo ku dhow ilaa dhowr boqol ah 500 network loo sameeyo la raadiyo waqtiga ciidda 3 bari ka hor laga shiro bisha la raadiyo la aruuriyo xogta waqti la isla ogyahana lagu dhawaaqo todobadii ciidood u dambeysay hal ciid mooyee intii kale oo hadda muddooyinka u dambeysay 3 sano 4 sano u dambeysay
hal mar baa la isla ciiday hal mar baa la afuray hal mar baa la soomay shacaa'irtaas marka lagu dhawaaqo cidda u xil saaran waa wasaaradda marka wasaaraddu ku dhawaaqdana sharcigu wuxuu qorayaa iyo hay-adihii loo idmaday in loo hoggaansamo taas marka wax badan baan ka qabanay waxaan hadda labadii ciidoodii labadii sano u dambeysay xataa mideena waqtiga aadaanka ee masaajidda iyo waqtiyada la tukanayo taas intaasaan ka oranayaa arrinta ku saabsan xildhibaanka la yidhi waa golihii baa golo kale u gacan dhaafay de xildhibaanku waa mas-uul qaran sharaftiisa iyo karaamadiisa qofna wax lagama sheegi karo hadduu xildhibaan yahay iyo hadduusan ahaynba laakiin wixii mas-uuliyadda ummadda ah oo mas-uuliyadda ummadda ka dhexaysa ah wixii ku saabsan waana laga hadli karaa waa la isweydii karaa marka anugu waxaan ka hadlay mas-uuliyad guud bay ahayd waxayna ahayd arrin aan xaq u leenahay ama anugu aan shaksiyan xaq u leeyahay inaan wixii mas-uuliyadda guud ummadda taabanaya aan ka hadlo ama tale ka dhiibo sharaftiisa iyo mas-uuliyaddiisa iyo shaksiyaddiisana aanu kuma xadgudbin mana iga suurowdo waana la akri karaa erayadii aan qoray marka taas waa taas baarlamaanka uusan kal fadhigii hore si sharciya u xirminna hadde waa wada ogeyn isagoo xirmin baa la kala tegey iyo habraaci loogu talagan loo marin marka taas waxaan filayaa cidda isku eedeemaysa dhibaato guud oo dhacday bay ahayd arrinta kalsoonida shacabka oo xildhibaanada qaybtooda ka hadlay xildhibaan yaasiin uu ka hadlay mas-uuliyadna saaran weeye kulligeen annagana si gaar ah in la hubiyo kalsoonida shacabku ay ku qabaan hay-adaha cadaaladda ee garsoorka iyo hay-adaha dowladda oo dhan waxaan fursad yar siinayaa inuu sharxo jeella oo la taliyo si gaar arrimaha uga shaqeeya ah annagu ka wasaarad ahaan hadda riboodkan idiin sugna labada kale fid u dhexaysay in ka badan 1,000 qof baan siyaalo kala duwan hadda riboodka idin horyaal ku qoran baan waxaan u weydiinay tala bixin iyo kalsooni gelin iyo waxa ay dhaliilayaan shacabka ah war maxaa tabanaysaan hay-adihii garsoorka iyo cadaaladda see loo saxaa maxaad ku kordhinaysaan maxaa dhib oo laydiin geysta oo tuulooyinka iyo ay dhibakaamaya iyo meelaha fogfogto iyo gobollada waddanka oo dhan jeellan ku wareejinaya marka arrinta aan wax yar sharxo waa barnaamij weyn aan wadno oo dhinaca xeerarkii iyo reformkii laga sameeyo dhinaca kalena dadkii shacabka in fursad loo siiyo in hay-adihii dowladda la horgeeyo la xisaabtamaan maxkamadihii garsoorkii booliiskii xeeraalintii intaasaan isugu yeernaa oo shacabka hor fariisinaa jeelle soo koob processkii la maray بسم الله الرحمن الرحيم وزير أدبا وما سنتعي دمان قدونك يو مدنياش بارلمان كسيدو كله انت وزيرك وشرح يرتا وحمهيما إن halbeega lagu cabirayo kalsoonida shacabka waxay u baahan tahay in lagu saleeyo qaab cilmi oo aqoona wasaaradda arrimaha gudaha oo kaashanaysa BDRC hadda waxay qabatay dhammaan laamaha ama hay'adaha dawladda kalsoonida lagu qabo statistically marka si guud loo fiiriyo waxay ka badan tahay garsoorka xarumaha garsoor dhaqameedka iyo culummadu waxay ku jiraan isku celcelis 70% in kalsooni lagu qabo door waxay ku leeyihiin sidoo kale in ay macnaha waxa way xalinta khilaafaadka nabadda iyo dib heshiisiinta intaba ay door muhiim ah ku leeyihiin annagu marka taa ka duulayno wasaaraddu waxay samaysay barnaamij gaar ah oo la rabo in lagu xoojiyo dadku garsoorka iyo laamaha cadaaladda laamaha ammaanka iyo bulshadu inay si baraxla u wada hadli karaan oo tusaale ahaan ayagoo is horfadhiyo qolo kastaba caqabadda haysato macnaha waxa weeye ay ka xallin karto barnaamijka marka waxaan ugu magac darnay barnaamijka la dhaho wada hadalka aan xanafta lahayn oo afka qalaad la dhaho non-violent communication maxaa yeelay inta badan wuxuuna ku salaysan yahay baahida qofka muwaadinka ah iyo baahida sargaalka garsoorka iyo laamaha ammaanka ka shaqaynayo ayagoo waxaa laga yaabaa hal meel wax u wado inay isku fahmi waayaan qaabkii waxaas loo qaban lahaa marka waxaan ka shaqaynaynaa barnaamijkaasi
haddeer lagu tijaabinayaa boosaaso in si guud macnaha waxa weeye loo dhiso kalsoonida bulshada iyo waxa weeye laamaha ammaanka marka loo imaado marka si gaar ah perceptionka ama halbeegga la cabirayo wuxuu u baahan yahay daraasaad wasaaradduna waxaa u qorshaysan sida haddeer ku qornayd inay qaban doonto shirweyne laamaha garsoorka ah ayadana waxay noqon doontaa arrimaha lagu soo bandhigi doono halbeegyada iyo meeshay marayaan kalsoonida bulshada aad iyo aad baa mahadsantihin waa mahadsantahay wasiir arrinta su-aasha ahayd keiskii kufsiga gabdhaha labadii gabdhood oo yaryaraa loo geystay gabdhaha waxaa lagu hayaa safe houseka waana la daweeyey wasaaradda haweenka safe houseyada ay mas-uulka ka tahay bay ku jiraan ninkii dambiilaha ah oo keiska geystana waa la soo qabtay wuxuuna ku jiraa laamaha maaragtay cadaaladda waxaana la horgeyn doonaa maaragtay maxkamad faahfaahiyo kiis kufsiga ah xildhibaanka qaar laasi wuxuu nugaal keliya kiiskeeda badanayaa 43 kiis kufsiga Puntland ka dhacay mudug waxaa ka dhacday 2025 January ilaa May 10 kiis ka dhacday gorow nugaal waxaa ka dhacday 12 kiis qarna waxaa ka dhacday 10 kiis boosaaso qarna waxaa ka dhacday ilaa 3 kiis 6 kiis meelaas booso waxaa ka dhacday 10 kiis horta kiis kufsiga horta taas weeye dowladdu wuxuu saartay xeer gaar ah oo la dagaalama arrinta agaasimaha guud dambiili shalay maxkamadda la keenay dhageysi koowaad baa lagu sameeyey xataa waxaa caddaatay ninkaasi inuu ahaa dambiilo hore intuu gabarh kufsaday gabadhii kufsadayba xataa horey u kufsaday baa waxay timid maxkamadda sheegtayna inuu horey kufsi u geystay marka fadhi labaad baa jiri doona insha Allah qodob kale wasiirku uu yiri garsoorkii maxaa ka qabanaysaan horta waxaa ogaataan heerka adeega golaha garsoorka waxaa la siiyey 2017 awoodo badan baa baarlamaanka siiseen garsoorka xukuumadda waxaa ka mid ah kow inay ayaga maamulkoodu gaar u yahay magacaabistoodu gaar u yahay wax kasta oo awood u leeyihiin wasaaradda waxaa la siiyey 2 qodob keliya xarafka ta iyo ja oo kaasoo sheegaya inay u raadiyaan capacity building garsoorka inay dhismo u raadiyaan labada qodob ay ku leedahay marka taas baa wasaaraddu awooddeeda intaas keliya ku kooban tahay aad u mahadsantiin qodobka kale uu mukhtaar sheegay qodobka 3 baa xeerka xabsiyada wuxuu qorayaa guddiga kormeerka xabsiyada wasiirku u magacaabay waxaana ku jiray xubno fara badan aniga waxaan ka mid ahaa xubnahaasi waxaan ka mid ahaa kormeero badan baan samaynay welina wuu socdaa inay xabsiyada booqdaan saldhigyada booqdaan aad u mahadsantiin horta arrintan inagu soo korodhay oo aanada iyo qabaa'ilada wax ka dhex dhacaya aad baan uga xumahay haba ugu sii badnaatay mudug anigu waxaan filayaa horta waxana waa wixii go'aanka sharciga ah waxana waa waxyaalaha waxaan keenaya arrimahan horta dhacaya oo aanada iyo qabaa'ilada islaynaya waxay daliil u tahay dadkii badnaa oo haldoorka ahaa oo ummadda indhaheeda ahaa oo la leynayay wixii ka dhashay inay tahay nabadoonnadii dadkii ummadda caqliga u ahaa caqli guur iyo dareen guur baa dhacay waxay u eg tahay inay isu soo hareen dad shacaba marka ama intii kale oo wax kala garanaysay mudugoo kale dawala socotaan 200 oo qof ku dhow baa la dilay dhowr 10 sano u dambeysay oo ummadii labeentay dadka ahayd horta meeshaan waxay u baahan tahay meesha waxaan uga imaanayaan burbur iyo dadkii dadka caqliga u ahaa in badan ka mid ah bay galbatay sanadkii hore waa run beelaha gobolka iyo odayaasha dhaqanku go'aan bay soo saareen anaga go'aankaas wixii dhinaca ayaga iyo capacity-ga iyo nidaamka dooriga intuu loo ogoliyay inaan fulino waa wadnaa si loo dedejiyo arrimahaas dambiilayaasha waa la qabtaa maxkamadeyntoodana waa la fududeeyaa inay sifa sharciga ku kala baxaan dadku beelaha waxyaalaha ka dhex dhaca marka annagu ma xakamay karno beeluhu ayagu hadday ku hesheen inay qisaas kala qaataan ama inay ma kala qaataan arrintaas waa arrimaha inta badan dee annaga gacanteeda ka baxsan sharcigu iyo xaq bay u leeyihiin inay ma kala qaataan ama qisaas kala qaataan
midda labaad waxay tahay dadkii dambiilayaashaabaa tegaya oo xadka puntland ka baxaayo taasoo ay adag tahay in la soo qabto maadaama muddo yar ay ka gudbayaan. waxaan ku soo koobayaa arrintaas waa arrin u baahan in laga wada shaqeeyo. wasaaradda cadaaladana kuma koobna, hay-adaha amniga iyo cadaaladda iyo hay-adaha garsoorka iyo sharci dejinta baarlamaanka uu ka mid yahay in la xoojiyo nidaamka amniga waddanka iyo dhismaha ciidamada hadda dagaalkoodu socdo, iyo in odayaasha dhaqanka iyo nabadoonnadu doorkooda ay qaataan oo dib loo howlgeliyo baa looga gudbi karaa caqabada jirta. tababarada aan bixinno dastuurku qayb buu ka yahay iyo wacyigelinada, laakiin waxaan filayaa intaa in ka badan in loo sii baahan yahay. annagu waxaan aad ugu tababarnaa ka wasaarad ahaan waxa weeyaan 7 xeer oo aasaas u ah ilaalinta xuquuqda iyo sharafta dadka iyo maalkooda hantidooda, oo uu ka mid yahay xeerka dacyarta, xeerka xabsiyada, xeerka la dagaalanka maandooriyaha, xeerka la dagaalanka argagixisada iyo fikirka xag jirka ah, xeerka dugsiyada qur-aanka oo carruurta yaryareyd lagu ilaalinayo xuquuqdoodii, iyo xeerka ka hortagga kufsiga. xeerarkaas waa xeerarka lagu ilaalinayo xuquuqiyaadka aasaasiyaadka iyo karaamada aadanaha. waxa ugu badan dadka ku tababarno waa xeerarkaas iyo dastuurka. waase loo baahan yahay wacyigelin intaan ka badan dhinaca dastuurka oo keliya. waa mahadsantihiin.